بسم الله الرحمن الرحيم. وضوبينا هدي الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وحليري وحو البق وأدونك للسماية السبب أيا جرت الله سماية سبب تاسن وحليري وحواية إنسانك وحوليه هي الغاية القصوى هدف ششوليه واقر marka insaanku hadafkaasi shay uu leeyahay ayuu u sacyahay ayuu u shaqeynaa uu warday afcaasha la sameeynayo oo dhan marka isku soo duubtidna ku waxa jira loo sameeynayo liajli Ilaahi azza wa jalla Ilaahi dartiisa loo suubinayo ibtigaa mardaati Allah inuu Ilaahi raali ka noqdo ya la dalbay way faantaan malin marka ma jirto qof dhihi karta walaalow haye يعني تبتغي مرضات معناها مرضات الله وحوحان aad u suubinaysaa inaad maaragtay raali ahaanshaha Ilaahay groupsatid nin dhiga kale wax fiican ma aha ma jirto walow macnaha dadka marka qaar kood afcaasha ay sameynayaan ay u sameeyaan tabtagi mardaata azwaajik nabiga lagu yiri calayhi salaatu wasalaam waxa taas u sameynaysaa li raali ahaanshaha xaasaskaaga tarabta mujid tabtagi mardaata azwaajik waxa dalbanaysa mujid dalbanaysa marka acmaasha iyo ficilada la sameeynayo oo dhan waxa la dhihi karaa waxa loo sameeynayaa tabtagi mardaati macnaha ayaa dalbanaysa raali aan shay ilaahay dalbanaysa waayahay maxad u dalbanaysaa raali aan shay ilaahay maxad u dalbanaysaa lama dhihi karo macnaha raali aan shay ilaahay dalbashada aad dalbanaysid ayaa ah algaayat alquswa haduu ilaahay rakaara la noqdo bas waay jida tabtagi mardaat azwaajik macna taas waay ya tabtagi mardaat Ilaahi azza wa jalla hadaadan dhihinin waradaniyo waxaan u sameeyay si xaaskaaga kugu jeclaato ya marka algaayat alquswa waxa waay ibtigaa mardaat Ilaahi inuu raali ka noqdo waay hiya algaayat alquswa هي الغاية القصوى مركو حاليا وين يراهدو يعني هدف كليتو وساشا ما كاجي جواب ولا انا ورك نوعد على سنه فعلا وكاجي جواب ليس هناك اغراض اخرى يا نبتغي مرضات الله عز وجل مجرو ما قلت يا هي الغاية القصوى يا فلها شيء إلهي يعني اسكت ضلبانينا ما قلت جزائي يا خسرت خايش يقولوا مثلا ابتغاء مرضات الله عز وجل إلهي نرانا نقول غربنا بس وحكرته ان رادين ان ربنا مجرته واجرت مركا وحان ogaanay algaayat alquswa se ku ogaanaysa marka waxaan inay yihiin wax oo tabtagi bi mardaat Ilaahi azza wa jalla se ku ogaanaysa dalbanaysa wajid se ku ogaanaysa waxa lida al-ithmu ma haka fi qalbik waxa xun waxa qalbiga ka xukmay waxa kale tan oo ku farxaysa waxa ku farxaysa hada ithmu ma haka fi qalbik hada markaan dhiheen waa isaga farxnay wajida ya nafعل هذا وهذا لابتغاء مرضات الله عز وجل يعني اسك dalbanayna bas كفت إلهي وكفلني ولي ماركتي gargaar xol boo kuflay way faantaan malina marka وحي وناكسنا اللهم صل على محمد وأغانيسا لأنه على فترة الله التي وجد فطر الناس عليه فترة سمحتها لا تبديل لكلمات الله وحي إلهي وسمعت بذلك اللي مجرته مركا وكم ملهمين هاي إنسان فكل ميسر لما خلق واحد نيهو أنا تاس إلى مسح سنة يعني إنسانك جوابته سهد بحسي هذا سيد عاد كله الله جواب داعي سماه
وحتري نبتغي مرضات معناها نبتغي مرضات الله عز وجل هي القرض القصوى يا ترسون واسع. فكيف نبتغي بمرضات الله عز وجل؟ من وحوا إن كنت ضربنا قال في القرآن كله شيء سنة عليه الصلاة والسلام. ما لو حجر عن عدين مركب. سالهانو كلاته شقة ربطة أنا برستي شقة ربطة أنا قبستي واجرت. شقة دي مركب حضرتها شقة واحدة ما عرفتي دين تقعد معه من إنجنير نقطة ما فوندي نقطة ما كاتبة نقطة يعني ديما هذا أخرى معناها ما حكيم بس كان نقطة هذا علم الكلام كحاسبرته ما يعني لكن وحربت أنا أوقاتي فكيف هذا العمل يكون عمل نجد فيه بمرضات الله عز وجل؟ شكو يعني الآن ما جرت وحو مركو حتاسكو أغانيسا فترة الله التي فطر الناس عليه سو هذا مرة هوران كاغا سو شغنا waxaan ku wariin ma dhacis waxay kaliya ku dhici kartaa waxa qofku hay waa isku ogyahay wahay isku ogyahay ilaahay oo macnaha wani taas ma dhacaysa ma hay hanuun waay marka ilaahay ku tilmaamay hanuun waa ilaahay ku tilmaamay ilaahay ayaa ku hadani waa ku twaasax إلهي معناها وقت الماما يهدي به من يشاء عدو رو وقت الماما وانا رجينا إلهي إنه تلمامو يا وتعصوا حريقة إني كو خصيص أرنت صراط المستقيم وددي توصلي وحاس لكن أنا الشيخة دي مهارد دي إلهي تعصنا قوته وسينا لكن هل هناك قاعدة عامة نستطيع أن نستعملها مجرد فكل ميسر لما خلق على قوف ذي وحي أذي على قو أبور وقوف ذي taasa marka waxay ka noqonaysaa tusaale ka noqonaysaa jantus ku noqonaysaa waxa ku fududaada ingiriis hadii taas ma shaqeynayso maxaa dhacay in bacda al-usri yusran in bacda al-usri yusran fudaydku wuxuu ka dambeeyaa culayska marka hadaan dhaho muyassirun waxa laga yaabaa adeega markii uu noqoto inaan dhaho hadii waxay muyassirun inay noqotaan la rabay fududaato waa ka tagay taasna ma shaqeynayso marka kulli caawa halkaas aan ku istaagayna ma salaam